sideed saaxiib hagsiya oo ogolaada failure-ka uga dhiganaysa waxa ugu fiican aad ka dhiganaysa ama jabka waxaad ka dhigataa ee bridge waxaad ogaataa inuu bridge yahay kaa gudbinaya ama kaa cross garaynaya dhanka nolosha aad ka joogto dhanka kale ku tagto haddii sanadkan aad qalin jabin weydo inaad u aragto inaad sanadka dambe qalin jabinso adigoo ardayda dhanka ah number 1 because sanadkii kaa lumay ugu sida noloshu ay tahay maalin iyo mugdi baad waxaad nolosha maraysaa maalmaha qaarkood oo aad dareemayso inaadan kicin waa wiigii saddexaad oo aanu ka hadlaynay sidaad saaxiib ula dhigan lahayd ama aad u ogolaan lahayd mararka aad dhacdo ama aad kufto ama aad fail garayso waxaan ka hadalnay wiigeenii koobaad ee February maxay tahay failure wiigga labaad waxaan ka hadalnay sideed uga falcelinaysaa ama u respond garaynaysaa wiiggan waxaan ka hadlaynaa sideed saaxiib hagsiya oo ogolaada failure-ka uga dhiganaysa not only inaad respond garayso not only inaad definition-keeda kuu sheegno bar inaad ka dhigatay inay tahay saaxiib ama inay tahay wax aad jeceshahay ama ay kula jira oo aad ogsoon tahay inaad wax ka baranayso haddaba in badan oo anaga naga mid inta aan ka soo sheekaynay failure-ka ma jeclin mana jeclid in lagugu yeero hebel waa failure laakiin noloshu waxa ay ku baraysaa oo aad tahay in aad dhacdo ama aad jabto waxaa jira book John Maxwell uu qoray oo la yiraahdo sometimes you win and sometimes you in badan in kamida waxaad la soo boodaysaa lose no you learn sometimes you learn you're not only winning mararka qaarkoodna waad baranaysaa noloshaad baranaysaa waxaad u baahan tahay in aad failure ka dhigato hag inaad siisa ama ay kula socoto inaad ogsoonaato you don't need only to go through inaad failure-ka aad barto but you need to grow through it in aad growth garayso oo aad ku korto oo resilience-kaaga iyo muscle-kaaga iyo adkaysigaaga uu kugu adkaado haddaba aan kula wadaago saddexdan waxyaalood oo kuu sahlaya inaad embrace garayso ama aad hagsiiso failure-ka waxyaabaha ay yihiin in badan oo dadkeena ka mida waxa dib u celinaya waa wax ku dhacay ee ma ahan wax maanta haystaa haddaba marka koobaad waxaad u baahan tahay in aad garaab garayso nadda failure-ka kaliya laakiin benefit-ka la yimid barashada la timid failure-ka not only inaad ka fiirisan the negative side okay haddii sanadkan aad qalin jabin weydo inaad u aragto inaad sanadka dambe qalin jabinso adigoo ardayda dhanka ah number 1 because sanadkii kaa lumay haddaad bishaan businesska ku dhacdo inaad u aragto inay learning kuu tahay oo aadan u arkin only the negative side waa nolosha waa dhankaad ka fiirisa waay haddii aad dhanka xun ka fiiriso wax walba waxaad ka arkaysaa xumaanta laakiin haddaad wanaagga ka fiiriso waxaad ka arkaysaa wanaagga soo markaad u arag jabka kugu dhacaya inuu wanaag yahay u arag inuu kugu kordhinayo ama kugu kobcinayo aqli iyo experience aysan dadka kale lahayn riski nolosha inaad riski gashay waa waxaan ciduna ama failure inuu kugu dhaco ama aad riski qaadata waa waxaan ciduna diidi karin waa non negotiable way maxay yeelay nolosha dhan baa riski iska haddaad ganacsi galaysaad u diyaar garoobaysaa adigaan ogeyn intaad noolaanayso mustaqbalka intuu nali habaadan ogeyn so it's in part of aad u baahan tahay inaad dhahdo waay wax noloshaan guarantee ama jiraan taydan guarantee ah inaan noolaanayo adigaan ahayn qof ah ma lahan laakiin inaadan u arkin wax waliba inaad ka haysato ma dhaqaaqaya haddaan la iga siinin guarantee haddaan la iga siin haddaan la ii cadaynin haddaanan helinin wixii oo dhan inay ii cadyihiin suurtagal ma aha mana helaysid suurtagalna maaha ma samayn karto make marka failure waxa ugu fiican aad ka dhiganaysa ama jabka waxaad ka dhigataa ee bridge waxaad ogaataa inuu bridge yahay kaa gudbinaya ama kaa cross garaynaya dhanka nolosha aad ka joogto dhanka kale ku tagto bridge-kaas oo ugu taragelaysa mararka qaarkood sometimes inuu sheegarayn karo inaad u baahan tahay inaad adkayso inaad u baahan tahay inaad u diyaar garowdo inaad dabaasho barato inaad u baahan tahay inaad taxadarkaaga badiso inaad u baahan tahay micnaheeda maaha inaad tahdo failure-ku micno ma laha am gonna go fail ma aha micnaheeda waxa weeye inaad ratigaaga dabrato micnaheeda waxa weeye inaad diyaar garowdo micnaheeda waxa weeye inaad dadnimadaada kor u qaado micnaheeda waxa weeye in aad u istaagto ama aad fahansan tahay yes waa dhici karaa laakiin inaan dhaco ama aan jabo ama ay fail garoobo igama reebayso inaan noloshaan guusha aan ka leeyahay aan ka gaaro this is the three things aad u baahan tahay markaad fahanto oo muhiimadeedu ay tahay number 1 in aadan marnaba u arkinin in jabku uusan la imaanin cashir uusan la imaanin cashir baa la imaada in aad fahanto noloshaan wax guarantee ama jiro oo everything riskigeeda iyo challengegeeda la imaada wuxuu dhahaa oday la yiraahdo Jim Rohn
haddii lagu dhaho nolosha riski ma qaadanay sida meel fadhiiso how boring noloshu ay ahaan lahayd ma aadan guulaysateen meelna maada tagteen iyo inaad u aragto waxa aad dhisaysa inay tahay buundo aad uga gudbayso ama aad uga gudbinayso dadka kaa dambeeya wiiga dambe oo February insha Allah tacaala aan ku soo gabagabayn doono ba waxaan ka hadli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo sidaad failure-ka uga gudbi lahayd kadibna waxaan bilaabaynaa annada 4 cashir kale oo kugu caawinaysa inaad fahanto dhaqaaluhu muxuu yahay haddaba haddii aad naga mid tahay waxaan jeclaan lahaa inaad la share garayso dadka kale ogsoonaatana week walba waxaan diyaar u nahay inaan kugu dhiiri gelino adiga go'aanka ama goolka aad leedahay ogow sida noloshu ay tahay maalin iyo mugdi baad waxaad nolosha maraysaa maalmaha qaarkood oo aad dareemayso inaadan kicin oo aad dareemayso mugdiga oo aad dareemayso energy la'aanta oo aad dareemayso waa wax normal la dareemo waa laakiin maalinkaas the only light aad u baahan tahay waa encouragement waa in lagu sheega inaad ibni aadan tahay waa in lagu sheega alla inuu wax kasta uu sameeyo ay laba yihiin maalin iyo habeen nin iyo naag wax walba inay laba yihiin soo haddaad mar kor jirto inaad expect garayn karto inay hoos jirto markaad hoos jirto inaad u baahan tahay inaad moralkaaga iyo niyadaada kor u qaado inaad failure oo aadan u arkin ama aadan turaantaradu u arkin and that's what baraarujin is doing for you ayadoo free ah waad dhageysanayso aan jeclahay inaad dadka la share garayso ayadoo course ahna waa waxa aad qaadan karto sanadka dhan diyaar ku ah ayadoo koorsooyin kala duwan oo aad u baahan tahay haddii Rabbi raali ka dhigo dhexda suunka inaad ku xirato si aad parachute-kaaga wuxuu only shaqeeyaa marka aad furatay aad parachute-ka furato isla tuurto adigoo ku talagalaya inaad diyaar tahay parachute-kaaga diyaar ku yahay ana diyaar u tahay inaad nolosha goolkaaga gaarto haddii aadan u diyaar garoobin bartaadaad fadhinaysa see you next week inshallah